madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda DP World ee maamusha martada caalamiga ee Berbera ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil isla markaana ka qayb galay munaasabad lagu dhagax dhigayo dhisme dekad cusub oo lagu darayo dekadii hore ee Berbera taasi oo cabirkeedu dhan yahay 400 oo mitir sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay xafladda sida quruxda badan loo soo agaasimay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Berbera marti sharaf kale oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay bulshada ugu horeyna waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay maariyaha dekadaha Soomaaliland mudane Saciid Xasan Cabdilaahi kana amaanay shirkadda DP World wax qabadka balaaran ee ka fulisay deegaanada gobolka Saaxil ayaa ka asala in la dhagax dhigo dekada 400 mitir ee container terminalka sida arkaysa waxa halka ku sawiran muuqa iyo nidaamka iyo container terminalka iyo tawaradeedaas insha Allah waa horumar weyn in badan baynu saadaalinaynay in badan bay dadku isweydiiyeen dadka qaarna oo ahaayeen 2 sanadood ayaa dib loo dhigayaa laakiin muhiimadda weyn in maanta halkan isku nimay inaynu markhaati ka ahaano waxa weeyaan in dekadii la dhagax dhigay waxa kaloo fadhiya halkan kusoo dhaweynayaa shirkadii dhismaha bilaabaysay oo mas-uulkii ugu sarreeyay halkan ka fadhiyo oo shirkadda la yidhaha Shifa Nahda oo ninkii ugu sarreeyay noo fadhiyo Abdul Shami isaguna kamida wafdiga runtii muddo dheer ayaynu sugaynay waa horumarkii u horreeyay Somaliland bilowga ahaa waxaan mar labaad in saxaab bay ka mahadnaqay waxa iyagu hadalka isu daba maray maamulaha mashaariicda shirkadda DP World عدنان الأبار يمدحوين كحيين كالصوماليلان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وحانا يقول على سيدتان can only be attracted if we jointly together succeed in developing the remaining capacity in terms of performance. The moment that happens, reputation goes up, capacity increases, and eventually qualified personnel at that stage will most probably be sent abroad from Somaliland to international portfolio of DP World, because this is what we do today in different ports which we manage approximately 80 ports around the world. dowladda iyo shacabka waa nahay ee suurtagalay Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee naga dhaxay xiriirka walaaltinimada qotada dheer leh oo ku soo dhiiraday maalgelintaas ballaaran oo tii ugu horeysay ee nooceeda ee u hela qaranka Soomaaliland maanta runtii waa maalin weyn oo leh mudnaanteeda iyo qadarinteeda waa maalinta dadka reer Somaliland ay sugayeen maantana waxaynu halkan joognaa inaynu dhagax dhigno balaarintii dekadda Berbera wajigii koowaad waxa guud ahaanba halkaasi ku soo gabagabowday munaasabadii lagu dhagax dhigay dekadda cusub ee gaadhaysay ilaa 400 mitir waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Sool telefishinka caalamiga ee Goobjoog Berbera